kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba waa joogtaan iyo si waliba waa dinoo daawanaysaan halkan waa xarunta dhexe ee telefishinka Somali News studio uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee Muqdisho waana goorihii aan idiin soo baahin jirnay warkii caalamka maantana warka waxa uu diyaar anigoo ah Ayduruus Maxamuud Iimaan qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana haddii Allah awood leh uu raali ka noqdo waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay taageerada beesha caalamka madaxweynaha Somaliland ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka kala socda qaramada midoobay iyo sidoo kale dawladda Masaarida Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in qiimo dhimis ay ku sameysay 40% shatiyada ganacsi ay wasaaraddu soo saarto مسؤولين hogaaminaya taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay isku shaandhayn uu ku sameeyay qaar kamid ah waaxda garsoorka ee maxkamadda sare ee Somaliland qodobadaas iyo qodobo kale oo ay kamid tahay duqa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kaarna waxa uu sheegay in aanu mar dambe u tartami doonin jagadaasi intaas waa qaar kamid ah qodobada ugu waaweyn warka telefishinka Somali News iminkana u diyaar garoobay isagii oo dhameystiran